halkani waa xarunta Mandera Islamic Center oo lagu dhaqaaleeyo agoomaha oo ay tiradooda ka badan tahay 150 qof oo ka kala yimid daafaha ismaamulka Mandera iyo meelo kale oo ka sii fogfog. xaruntani waxaa la aasaasay sanadii 1972 waxaana marka hore bilaabay nin Talyaani ah oo lagu magacaabi jiray Father John. Mandera Islamic Center. This center was called Mandera Boys Town when it was established in early 1970s. It was started by an Italian Christian missionary fathers with the objective of providing basic education and vocational training opportunities to standard 8 believers. These fathers left the center in 1982. They handed over to Mandera County Council. The center was handled by the Mandera County Council between 1982 to 1986. That was handed over. 10 sano kadibna waxaa lagu wareejiyay culimada oo hogaaminayay Sheekh Ahmed Xasan Mursal oo ku magac dheer Sheekh Ahmed Suudaan oo sida dhabta ah juhdi dheeraad geliyay si uu u xanaaneeyo agoomahani. taariikh yar xarunta ku saabsan xaruntan waxaa la aasaasay 1972 ayaa la aasaasay dad Catholic ah ayaa Itaaliya ka imaadanay aasaaseen 15 sano markii ka shaqeynayaan kadib ayaa ka baxeen waxaa marka la wareegtay County Council Mandera kadibna waxaa lagu wareejiyay idaarad islaami ah magaca islaamiga ayaa loo bixiyay magac hore waxa la dhihi jiray Mandera Boys Town ayaa la dhihi jiray xaruntaas walaalayaal maanta waa meel aad iyo aad u qiimo badan oo ku taalo Mandera arrimaha weyn ay qabato waxa way aqoonta tacliintooda tarbiyadooda iyo taakuleentooda iyo wixii masaakiin soo raaco iyo diinta islaamka barashadeeda guud ahaan magaalada Mandera wixii oo ku nool oo u baahan oo wixii ida tabarta ka qaban karto arrimahaas ayay xarunta wax ka qabataa. halkani waxaa ka faa'iideystay dad gaadhaya kumanaan qof oo haddeertan ku kala nool dacladaha adduunka oo qaarna ay shaqaynayaan iyagoo marka horena halkan wax ka bartay. xarunta muddada laga soo bilaabo ilaa maanta 30 sano taqriiban waxay soo saartay dad aad iyo aad u tiro badan ayaa certificate ka qaatay shahaado ka qaatay oo caalamka ku faraarsan qaar far badan ay quraanka xifdiyeen meelayaal laga inay imaamka yihiin qaar far badan dhaqaatiir way qaar far badan muhandisiin way looyara ayaa jiraan qaar beecshirley ayaa jiraan shaqada nooceeda ayay ka shaqeynayaan waa muraha oo rasmiga ah xarunta muddada dheer soo saartay. kani waa Cabdullaahi Ibraahim oo halkan ku soo barbaaray isagoo 30 sano ka hor halkan wax ka bartay haddana wuxuu halkan ka yahay imaamka masjidka xarunta. Cabdullaahi Ibraahim oo waxaan ahaa ardayda oo ka soo baxay markaskan oo ka faa'iideystay oo boardingkan ku jiray ayaan ahaa had meeshan wax ku bartay anagoo curyaan ah oo qaybta curyaaminka ku jiro oo marka intaas oo sana oo dhowr 30 sano ayaa inta jooga oo macallin dugsi mu'minta markaan ka soo baxay oo waxaan ku noqday hadana inaan aruurta wax baro ogoomaha hadana imaam masaajidka ayaan ahaa marka jazaakumullahu khayr. haddeertan waxaa halkan lagu xanaaneeyaa caruur gaadhayso 140 qof oo iskugu jira agoomaha iyo masaakiinta kale. The orphans are 150 orphans. As at now, the center is not a profitable making center. It only takes care of the
orphans. The main objective of the center is to care for the vulnerable children, especially the orphans and the disabled and the destitute children. xarunta waxay leedahay 7 qol oo jiif ah oo halkii qolba uu qaadayo arday ka badan 5 iyo 10 caruur. waxayna qolalka dhan leeyihiin muraaxado la isticmaalo xilliga kuleelka uu jiro. kuwani waa qaar ka mid ah caruurta agoomaha oo halkan lagu xanaaneeyo, waxayna sida dhabta ah ugu faraxsan yihiin sida wacan oo ay xarunta u bedeshay noloshooda. كان عاهد مدرمنا كان عاهد سندروق قلنا كان عاهد لا مدرمنا مش كويس أنا Sama Hassan, I think that I'm a student about something that I'm kind of at year 22. So I'm now I was graduated. I'm just studying here. Now I'm at the secondary level. I'm at the level now. So I think all about all of Muslims will assist us. Mimi nimetoka Nairobi nimekuja kusahau siku ya kitu. Babangu ndio ametoka kutoka hapa Mandera. Wakati nimekuja sijajua kitu. Sasa nimejua alhamdulillah. Alafu MSc nimekuja kwa masomo tu. Kampeleka somo nzuri. Jina naitwa Abdulaziz Mohamed. Nimetoka Nairobi. Niko kwa Jenga. Nimekuja kwa Mandera kusoma Qur'an. Sisi tulikuwa kwa maisha ilikuwa ngumu. Sasa hivi tumeleta huko Mandera Islamic Center imekuwa rahisi. Alhamdulillah. Sisi tumejifunza Qur'an. Barakallahu fikum wa tuleta zawadi. magaceed Isaaq Abdikarim Alida ad boarding kan ku soo weynaadi class 8 anahay Qur'aan waa dhamay inkastoo ad Qur'aan dhamay dadkan waa ninka rabaan inuu nagu ad u mahdi alina ilaa ilaahay qeyrsi يا رسول الله أحمد خير أيتام البرية عاش يتمن في صباه وقد صار نبيا عاش يتمن في صباه ثم قد صار نبيا يا ابن ديني هاك قولي واسلك النهج السويا لليتيم عليك حق فرعه فعلا وهديا يا ابن ديني هاك قولي واسلك النهج السويا لليتيم عليك حق فرعه magaca Abdullah Hussein Allah buluun ciyaarna khamiis jimco waan guri ciyaarna anada dhoomanaya ilma dhoomtooda ciyaarna khamiis jimco dhan biir ciyaarayna amir watane caruurta waxay halkan ka helaan cunooyinka daawada iyo aradbaxa ودحر الشيطان أنا وحنا يميل ما يسيادة كان أنتي نسيان واحد كلنا نسيان
الله أحسنات أجرها كثير وحان كلا دوننا دتك لا يكسو ديتان سدتك الله ساعدة كيسي بي مركل سعيدنا الله أحسنات كثير وحان رجينا دتك لا صومنا جدك دتك نو سمين سنت وحنا نسا وحبرشة iyo cunta iyo dawo أول حافظة كويسة حافظة كويسة هذا مندرة إسلاميك سنتر المصري كي يحيل ظلمة القلب بإحساسه ضيّا dalka ciidan oo soo galay waa mahadsantihiin ilaahay khayr ha naga siiyo oo naga farxisana ilaahay naga farxiyo waxna ciidan maanta ku farxnay walaalayaashana oo maanta dharka noo qiibeen aad iyo aad aan u farxsan jazaakallahu khayran waa idin mahadcelin waa idin ducayni qara laayisi dhanka waxbarashadana xarunta waxaa kaloo laga helaa waxbarasho bilaash ah oo iskugu jira maadiga iyo diinta islaamka caruurta halkan lagu xanaaneeyo qaar way dhammeeyeen qur-aanka kariimka iyagoo isla markaana maskaxda ku xifdiyey 114 oo uu qur-aanka ka koobmo xarunta waxaa ku yaala iskool iyo madraso ay dhigtaan ardayda dibadda ka timaada oo iyaguna iskugu jira gabdhaha iyo wiilasha macallimiinta madrasada ayaan ka mid ahay muddo 30 sano madrasadan ayaan macallin ka ahay maraaxisha oo saddexdii ibtidaa'i iyo a'daadi iyo thanawi ayay ka koobanta marka dad badan way ka takharujeen waana aad magaceedana madrasatu Umar al-Faaruq ayaa la yiraahdaa magaca adaad maqashada madrasada nafteeda adaab iska fahmi doona martabada ay leedahay adaab fahmi doona إذا تكلمنا قليلا عن المدرسة وهي مدرسة عمر فاروق أسست عام 1987 في داخل مركز منديرة الإسلامي وهي تتكون من مراحل 3 الابتدائية والإعدادية والثانوية ولها عدد كبير من الطلبة ويبلغ عدد المنسوبين إليها حاليا حوالي 400 طالب وطالبة والمدرسون 14 مدرسا وقد تخرج من هذه المدرسة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا من مراحلها 3 أفواج كبيرة من المتعلمين التحقوا بميادين مختلفة في العالم وسواء في المجالات الخاصة أو المجالات العامة وما زالت المدرسة تؤتي أكلها كل سنة وطبعا مدرسة لها فصول كما ترون أمامكم فصول متكاملة تتكون من 12 فصلا وكذلك مكاتب إدارية ومكتبة للكتب وطبعا المدرسة يستفيد منها الأيتام الموجودين في داخل مركز منديرة الإسلامي وكذلك الطلاب الآخرين يأتون من الحارة المحيطة بالمدرسة ونرجو للجميع التوفيق والسداد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. caruurta haddeertaan halkan wax ka barato waxay gaadhayaan 440 waxaana jira madrasada oo ka kooban 12 fasal oo ka kooban haddana qaybta maamulka iyo macallimiinta oo ay tiradoodu gaadhayso 15 shaqaale oo wada macallimiin ah. أنا واحد من طلاب هذه المدرسة عمر فاروق أدرس الآن الفصل الثالث الأعداد وذهبت المدرسة الثالث الابتدائي وصلت إلى هذا الحد يا إله العالمين يا مجيب السائلين حملنا منك رشدا ورشدا ويقينا حملنا منك رشدا ورشدا ويقينا ربي جملنا بعلمي اسمي أسماء حسن أحمد يوسف أنا في مدرسة عمر فاروق في الصف
الثالث الثانوي. المدرسة تتكون 3 مراحل: مرحلة ابتدائية، ومرحلة ثانية ابتدائية، وإعدادية، والثانوية. مدرستي تتكون هذه الفصول وهذه المكتبة. iskoolka hoose dhexe oo xarunta ku dhex dhisan waxaa lagu magacaabaa Mandera Boys Town Primary School, waxaana iskoolkaasi maamula dowladda dhexe ee Kenya, waxaana wax ka barta ardayda ka timaada gudaha iyo dibadda ee xarunta Mandera Islamic Center. xaruntaani ma jirto cid si toos ah u soo maamulaysa oo maalgashi ku samaysanaysa tan iyo 20 sano ee la soo dhaafay, marka laga reebo carabta oo waagii hore wax ku soo darsan jirtay. xarunta waxay xitaa qarka u tagtay inay iska xiranto sababo lacag la'aan ah. xaruntaani waxaa ku dhex yaala madrasada Cumar Faaruq oo iskugu jirta maadiga iyo diiniga oo aan innaba caadi ahayn, oo ay wax ka bartaan wiilasha iyo gabadhaha ka yimaada dibadda xarunta iyo xitaa agoomaha laftirkooda. This school was started around 2007. We started the first nursery class up to class 1, 2, nursery class 1, 2, 3. Nursery class 1, 2, 3. From the start of that moment, up to today, the school now contains up from now class nursery to class 8. And then the enrollment of now, this kind of this year 2017, the second term around is 331. Whereby the school now is accommodated from nursery to class 8, as I said before, and then around the teachers or the staff of the school around 18. Circular 12, and then in the madrasa side there are 8. 6, yeah, around 6, sorry. Are very special from the other schools, and I think the best school in Mandera school is Faruq Integrated Academy. xarunta waxaa dhaqaalo aad u yar ay ka heshaa ceelasha Boys Town oo bulshada ay biyaha ka dhaansadaan. waxaa kaloo dhaqaalahaasi yar soo geliya beer ku taala gudaha xarunta oo ay bulshada rayidka wax ka gurtaan. يا ابن ديني هاك قولي واسلك النهج السوية لليتيم عليك. beerta waxaa ku yaala shinnada oo malabka dhalisa iyo kanaalka biyaha u keena qaybaha kala gedisan ee beertaasi. xarunta waxaa ku dhex yaala meel lagu sameeyo farsamada gacanta oo xarunta keliya wax u qabato, oo waagii horeyna wax lagu bari jiray curyaamaha iyo tabarleyda si ay mustaqbalka isu anfacaan. meeshaan waa garage Mandera Islamic Center. waxaa lagu hagaajiyaa caruurta sariiryaashooda iyo waxaa lagu hagaajiyaa waxyaabaha iyo kuraastooda ay ku fadhiistaan. lagu hagaajiyaa part of mechanical training oo hata ardayda waxa baa lagu baraa. inkastoo maamulka xarunta ay isku day ballaaran ku wadaan xaruntaani, waxaa kaloo loo baahan yahay caawinaad ka yimaada dibadda si loo gaadho miisaaniyadda lagu xanaaneeyo caruurta agoomaha xaruntaani ee Mandera Islamic Center.
yihiin xarunta sidii ay idinkugu baahan tahay dadka waxaan ugu yeeraynaa inay meesha gacan ka geystaan alla dartiisna ugu geystaan sidii ayaga u noqdaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam dad jiiraan la ah maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi anaa wa kaafiru lyatiimi ka haatayni fi ljanna anaga iyo qofka ogoonka faala qaado jannada sidaas oo kalaan ku nahay buu labadaan siday isugu dhow yihiin oo waxba weynba kala dheereen sidaas ayaan jannada ku nahay buu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay sidii khayrkaas aad u heshaan ka soo qayb qaata xarunta masaakiin fara badanna waa ku xiran tahay sidaa darteed marka hadda aniga waxaan codsanaynaa maadaama aan culimmadii nahnay horta meeshaan nin walba oo muslim ah oo ma garanaysaa afkaan ku hadlayna garanaya ama dad afka aan ku hadlayna aan garanaynin xiriir la leh oona muslimiin ah iyo dadaan muslimiin ahayn hataa haddii aad wax ka soo qaadi kartid inaad maaragtay adiga oo sadaqa jaariya ka dhiganaayo ilaahay dartiis u samaynayo inaad kaalmo ka geysatid xoolahaada iyo caqligaada iyo qalinkaada iyo naftaada iyo fikirkaada inaad maaragtay markaskan aad ku noolaysid ilmaha agoomaha aad ku barbaarisid aad iyo aad ayaa maaragtay lagaaga sugayaa culimmadana duco unbay ku hayaan inaan idiin soo ducoyno waxaan ka codsanaynaa inayna kaalmayaan dadka walaalaheena muslimiinta ah oo jiilka yaryar oo soo koraya tacliintoodii iyo waxbarashadoodii muxuu ahaa ay wax ka qayb qaataan hal agoon haddaad ka qayb qaadatid waxaad la mid tahay adoo agoontii oo dhan wax u tarayba ayaa la mid tahay sida ilaahay qur-aanku ku sheegay hal naf ninkii nooleeya wuxuu la mid yahay isagoo dadkii oo dhan nooleeyey sidaa darteed meeshaan markaskan oo islaamka ah ama islaamiga ah baahi badan buu idiin qabaa annagana khayrka ayaa inkugu yeeraynaa si muxuu ahaa annagana khayrkii haddaad wax ka geystaan annagana ajar aan ka helno sidaa darteed culimmada Mandheera oo dhan ayaa marka inta badan ayaa meesha ku kulmay dadka muslimiinta ah walaalaha ee maqlayaan ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan inay muxuu ahaa markaskan ay ka qayb qaataan wax ku taraan ayaan muxuu ahaa ayaan ka codsanaynaa تلقوا فيه إثباتا جليا كم عظيم رغم يتم كان بالمجد حفيا كابن حنبل وابن باز عانق الأفق عليا والذي يسعى بنا كي نبلغ الجنة سعيا يا رسول صدح جد